wacyigelinta qaadashada talaalka COVID-19 ee Soomaalida Norway ayaa mid ay haatan dadkeenu fahmayaan. Maryan Cismaan waa 78 jir waxayna ka mid ahayd dhowr qof oo Soomaali oo nasiib u yeeshay qaadashada cirbadda ka hortagga talaalka COVID-19 waxayna ugu baaqday dadka Soomaaliyeed ee Norway inay qaataan cirbadda. waxaan kula dardaarmayaa in talaalku inuu fiican yahay ilaahay tawakkal talaalkiina tawakkal waad ku biskoonaysaan sida isu dhaama yaa هذا إذا شيء طلال حسب قنين ما شاء الله. ربح هذا يتبادل والله بمنا يا موت. رد مرة يتبادل. ملك وحدة عينها ملك. لكن إلهي بكون هنا أتحدث على النفس. نفس يتحدى نفسنا الله لحد وفور حساتها مركز نفط أدي على نفط إلهي بأتي ستجلس صح؟ هذا يجي مركز نفط. واستلال. وإلهي بريء القرآن كان صلاة تكره. الله كان قال. حسن سعيد راستا راديها يا تي في قناه الصوماليات اوسلو نوروي.